TechTones.com. markaynu ka hadlayno waxyaalaha keena waxay ka iman karaa gastriga amba xanuunada aynu naqaano gastriga wuxuu ka iman karaa in ay kala bataan amba uu bato calooshu waxay leedahay waxyaalo ka ilaaliya ICD maadaama calooshu ICD fara badan soo deynayso waxa lumaya ilaalintii caloosha amba dahaarka caloosha ka ilaalinaya ICD markay kala bataan ICD calooshu soo deynayso iyo dahaarka caloosha oo yaraada marka waxa imanaya gastri waxa jira waxyaalo badan oo ay yiraahdo risk factors amba qofka halis u ah inuu qofkaas gastri ku dhaco waxa kamida qofka inay ku dhalato bacteria H pylori la yiraahdo oo u sahlay qofku inuu nabar sameeyo waxa laga yaabaa dadkan smokerska amba sigaarka caba waxa laga yaabaa inay halis u yihiin inay nabarka xanuuno gastri ku dhaco waxa laga yaabaa environment-ga amba diet-ka qofka cuntada uu cunayo oo waliba khaasatan dadka Soomaalida ah kuma badna ma oran karno waxa keenay spicy foodska waxyaalahan basbaaska leh inaguma badna waxyaalaha fried foodska ama waxyaalahan la shiilo oo kale kuma badna laakiin waxa inagu badan waxyaalahan la khamiiriyo su'aalahan kale qofka Soomaaliga oo dalka badanka jooga waxa weeyaan quraacdi wuxuu quraacdaa subaxii meel ugu badan waa la xoox laxooxduna seen ka warqabno waxa weeyaan waa khamiir la khamiiriyay oo isku bedelaysa ICD qofku isagoo habeenkii dhan gaajoonay calooshiisa oo calooshii ay soo saaraysa ICD fara badan qofku markuu subaxii uu ku bilaabo laxoox waxa isla sii siyaadaysa ICD caloosha dibadna waxa ka badanaysa barrierkii caloosha ICD ay qofku soo caloosha soo saarayay iyo tan kale ee loo keenay waxa kale oo iyagana keena stresska qofku hadduu fikir fara badan uu aad u fikiro waxa badanaya ICD caloosha ay soo deynayso waxyaalahaas oo dhan waxay ka qayb qaataan ama inuu kana waxay halis u yihiin qofkaas inuu ku dhaco gastri sina ka warqabno dhammaan jirka qaybihiisu isku wada xidhan yihiin hanaqdo maskaxda hanaqdo caloosha stress ulcer ama marka leeyahay qofka stress baa haya ama nabar ku keenaya waxa u badan tahay qofka marka lagu sameeyo qaliin aad u culus ama marka uu hayo xanuun fara badan ama marka uu hayo fikir fara badan maskaxdu waxay amraysaa caloosha amba waxay amraysaa maskaxdu inay sii deyso ICD fara badan iyadoo loo soo marinayo vagus nerve wuxuu ka masuul yahay inuu soo daayo hormoonada caloosha ee gastrinka iyo HCl oo ah gastriga waxyaalaha sameeya ee ICD caloosha fara badiya taasi waxay saacidaysaa in ay bataan ICD calooshu maadaama ICD calooshu badatayna waxa laga yaabaa inay yaraadaan dahaarkii caloosha ay ka bataan ICD oo saadiraadid ay ku sameeyaan nabar maskaxda ayaa amraysa stressku maadaama ku batay waxay amraysaa caloosha in ay soo diiso ICD fara badan waxa lagu ogaan karaa waxyaalo fara badan waxa ugu horeeya oo inaga dalkeena imika available ah in laga qaado serology test oo qofka inta dhiig laga qaado loo eegaado inay jirto H pylori H pylori waxa weeyaan waa bacteria ku dhacda caloosha u gaar ah taasoo ku samaysa nabar dabeetana qofku dareemayo xanuun fara badan taa lafteedu waxa lagu baaraa waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin in serology-ga lagu baaro soo soo sheegnay waxa jira waxa yiraahdo urease test amba breast test oo waxa weeyaan waa bahal yar oo lagu neefsanayo dabeetana waa la afuufaya waxa soo baxaya qofka inuu leeyahay ICD waana ugu badan ee 80% bahalista markaynu ka hadlayno H pylori serology-ga ma kala garanaysid qofkii imika ku yimid ee dawada siisay aad ka daweysay iyo qof aanad ka daweyno imika ku yimid ma kala garanaysid qofku xanuunkan imika ku hayaa oo H pylori laga helay mise wuxuu ku dhacay hore ugu dhaco dawo ku qaatay kaliya waxa ku siinaysa waa positive iyo negative marka waxa fara badan qofkii isagoo dawadii qaatay in haddana still jirkiisa ku sii jirto lan waxa la baarayo waa antibodies kuna soo wadagnahay jirka in badan ku sii jira waxa kale lagu baari karayaa inaynu sameeyno endoscopy lagu dhaadhiciyo oo ah tuubo caloosha la gelinayo oo lagu soo sawirayo caloosha iyo hunguriga iyo mindhicirka taa lafteeda waxa laga soo qaadaa cad baa laga soo jaraa caloosha amba laga soo qaadaa dheecaan caloosha deetan waxa loo diraa laabka deetan waxa laga baaro culture lagu sameeyo inay jirto H pylori waxa kale oo soo raacay in qofka la waraabiyo barium oo lagu sawiro haddii nabar jiro ay soo saarayso waxyaalaha ugu badan ee aan ku ogaan karayna iminka lagu sameeyo waxa weeyaan intaas